ciidamada Ruushka ayaa iska caabin xooggan kala kulmay shacabka ku nool magaalada Melitopol oo ay bishii Febraayo ciidamada Ruushku soo gaareen. Dadka degan magaaladaas ayaa iskartaag ku sameeyay kolonyada baabuurta ay isku day inay magaaladaas qabsadaan. Shacabka aan humaysnayn waxaa la arkayaa iyagoo isugu soo baxaya wadooyinka waaweyn ee magaaladaas oo ruuxaya calanka dalka Ukraine. Markii uu Ruushku bilaabay inuu xakameeyo mudaharaadyadaas wada dhaqaaqa iska caabinta, waxaa ka dhalatay inay abuurmaan kooxaha cusub oo si weyn u abaabulan oo dagaalka ugu soo horjeestay Ruushka inay magaaladaas ka abuurmaan. Sida laga soo xigtay macadka daraasaadka dagaalka ee fadhigiisu yahay Mareykanka, Melitopol waa magaalo door fiican ku lahayd dagaalka lagula jiro Ruushka tan iyo bartamihii bishii Maars, waxayna kooxdaasi si aan kala joogsi lahayn u sii wadaan weerarada ka dhanka ah ciidamada Ruushka. Arbacadii la soo dhaafay, tareen gaashaamon oo Ruushku leeyahay ayaa la sheegay in marinkii laga leexiyay maalmo ka horna 2 askari oo Ruush ah ayaa meydkooda laga helay wadada bishii hore. Buundo u dhow Melitopol oo saadka loo mari jiray ciidamada Ruushka ayaa la qarxiyay. Buundada la burburiyay ee ku taalla meel u dhow magaalada Melitopol. Maayarka magaalada Melitopol Ivan Fedorov wuxuu sheegay in weerarada khasaaraha ba'an uu geystay Ruushku inay soo abaabuleen kooxo iskood isu abaabul oo hubeysan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee shacabka magaaladaasi oo wada shaqayn dhow la leh ciidamada Ukraine. Waa hawl ay geesiyaashaasi sirdoonka ay ciidamadani si wada jir u qabteen, ayuu yiri Fedorov laftiis, wuxuuna gacanta u galay ciidamada Ruushka inkasta oo markii dambe la sii daayay xilli maxaabiista la isdhaafsanayay. Ruushka waxay ku dadaalayaan sida ay gebi ahaanba u baabi'in lahaayeen kooxaha iska caabinta wada, iyaga oo baaritaan aan kala joogsi lahayn ku sameeyay guryaha dadkana xariga aan kala soo lacayn kula kaca. 29 Abriil, la kubaysan oo ku labisnaa dariiska militariga oo ay ka muuqato astaanta ay adeegsadaan askarta Ruushka ayaa afduubtay Boris Klash, madaxa dabdamiska maxalliga ah ee Melitopol. Muddo 2 toddobaad ah ayaa eheladiisu waxba ka maqal halka uu ku sugan yahay. Maalmo ka hor, kanaalka Telegram-ka oo taageera Ruushka ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya Master Klash iyo rag kale oo Ukraine oo u dhashay oo qirtay inay xogta dhaqdhaqaaqa Ruushka la wadaagayaan militariga Ukraine. Klash wuxuu ku hadlay cod hoose oo u muuqday hadalkii uu sheegay inuu ahaa mid lagu qasbay, laakiin xitaa haddii ay u egtahay qirasho qasab ah, kuwa muuqaalkaasi sameeyay ujeedkoodu inuu ahaa fariinta uu ninkaasi gudbinayay inay saameyn ugu geystaan kooxaha iska caabinta wada ama ay ku niyad jabiyaan.